kusoo dhawaada daawadayaal mar kale iyo barnaamijkan aynu kaga hadlayno mala jooga xilliga qaxootiga dadka Soomaalida ah dib loogu celi lahaa Soomaaliya waa ay qofka noqon kara qaxooti waxaa la oran karaa qof dalkiisii joogi kari waayay amaan darro darteed ama naftiisa ama amaan darro guud uga soo kaca waa ay qofka noqon kara qaxooti midda kale waxaad u malaynaysaa hataa annagu inaanu xaqayaga sidii la doonayay u doonin markaa ma waxaan u dooni karnaa qaxooti noo yimid dadkan Soomaalida ee qaxootiga ah sidee baa loo celin karaa waxa laga celinaya xiriyaha qaxootiga ee ku yaala gobolka North Eastern ama Soomaalidu soo taqaan NFD kuwaas laga horeysinaya kuwa Down Kenya jooga ma la dhihi karaa dadka Soomaalida ayagoo raali ka in hadii dib loogu celiyo dalka Soomaalida dhibaatada ayaa si horeysa canuga yare caloosha hooyadii ku jira oo mugdiga ah markuu dabadda u soo baxo ooyga yani wuxuu la yaabsan meeshan uu yimid wuxuu ka soo dhaxbaxay maaragtay caloosha mugdi oo ka soo dhaxbaxay ninka Central Bank wuxuu ku faanay bari dhexdaasa diasporayaasheeda waxay soo diraan $1 billion sanadkii $1 billion Soomaali iskale Soomaalida uma haysato inay wadan yihiin iska daa qaxootiga goordhow kala soco barnaamijkan oo dhameystiran TV-ga caalamiga ee Kalsan TV